بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال iyo marweyn ikhyaar meel walbood adduunyada ka joogtaan aatanna ku soo dhawaada Firabilowga warbaahintiinii ku bahawday Southern Media Corporation oo mar walba aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah siyaasadaha isdiidan iyo kuwa is ogol ee sara sabaynaya geeska Afrika iyo midda caalamkaba waxaan sir iyo warbixin kooban aan idinka siin doonaa haddii Allah awoodda uu ka raali noqdo doorashadii xaaraanta beenta ahayd ee salbalaar ay ku walaaqatay magaalada Baydhabo oo beebaha iyo qoriga caaradiisa AK47 aka olola afkii lagu waday xagee la kala maraya doorashadaasi sida aan sheegnay Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Aadan Madoobe ayaa ugu horeeya balse laakiin Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ku guuleystay 80% sida ay soo xaqiijisay warbaahinta jaamacadda SMC sirdoonkeeda dhagax karis oo gacanta ku soo dhigay dood ayaa madax la isla galay natiijada doorashadaasi xaaraanta waxa la doonayay in lagu dhawaaqaba maantay laakiin markii la ogaaday tirintii marka la bilaabay Shariif Xasan in uu 80% uu ku horeeyo waxay go'aansadeen qoliyaha JSB Xasan Sheekh Maxamuud iyo Aadan Madoobe oo garoodda isla galay in natiijadaasi dib loo dhigo ku dhawaaqida balse laakiin tashi kadib lagu dhawaaqo xaaladda marka hadda meel culus ayay maraysaa guddigii ay qorteen Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisii ee u dhashay Digil aw Mirfle shaqeynay waxa ka hoos shaqeeyay Shariif Xasan Sheekh Aadan waxayna si toos ah ay ugu shaqeeyeen Shariif Xasan Sheekh Aadan saan hore u sheegnay 80% isaga soo baxay codaynta awood looga dhawaaqa waa la waayay damul jadiid waa isku noqdeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Aadan Madoobe madaxa isla galeen Aadan Madoobe wuxuu kuleetiga qabsaday gudoomiyaha guddiga doorashada wiilka sacadka ah ee salbalaarta u dhashay oo Baydhabo jooga wuxuu yiri saaxiib lambarada kala bedel aniga igu dhawaaq in aan ku guuleystay laakiin gudoomiyaha guddiga doorashada wuxuu yiri kuma dhawaaqi karo ilaa iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo amar isoo siiyo Xasan iyo Aadan Madoobe is waraystay Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yiri Aadanow guddiga ayaanu lacag siinaynaa mar kale si ma arkaysa ay wax u kala bedelaan markaasi kadibna waa ku shubanaynaa adiga lagu soo saaraya balse laakiin Aadan Madoobe wuxuu yiri waxaan doonayaa 80% ka hadda Shariif Xasan uu ku guuleystay in aniga tiradaasi la ii bedelo lambarkaasi la isiyo in 80% aniga aan ku guuleystay taasi Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisu way ka diideen ku shubashada way isku raaceen in ay ku shubtaan balse laakiin lambarkaasi waa fadeexad bay dhaheen in aan ma arkayse ku xadno ama been aan ka sheegno waxaanu doonaynaa in aan dhahno 55% ayaad ku guuleysatay Aadan Madoobe doorashadii laga qabtay beenta ahayd Maryland balse laakiin Aadan Madoobe wuxuu leeyahay arintaasi dhibaatay ugu tahay haddii 55% baad ku guuleysatay la idhaho waxay muujinaysaa in ma arkayse taageero aanan ku lahayn marka waxaan rabaa taageero aan lahayn in recordka ay ii gasho caalamka iyo Soomaali oo dhan in dadkaygu ay jecel yihiin anoo og dadku inay iga soo horjeedaan Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yiri Aadan Madoobe walaalow xageen ku geynaa lacaga iga baxday waan khasaaray doorashadiina ma arkayse macnaheedu adiga kuma adan soo bixin dadkaagana way ku diideen way ku naceen taangiyaan ku geeyay kaaraan kugu geeyay wax kastaan sameeyay dhaqaalahan dhiibay what can I do nimankii lacagta naga qaatay ee guddigii raxweyn haddii xataa ay kula shaqeyn waayeen oo Shariif Xasan Sheekh Aadan ay hoosta kala shaqeeyeen ay kugu rogeen ay nagu rogeen Aadanow maxaan ku qaban karnaa nasiibkaaga sida noqday balse laakiin hadda waxay go'aan ku gaareen in doorashadii beenta ahayd ku shubasho ay ka dhigaan Shariif Xasan Sheekh Aadan waa laga adkaaday in la dhaho natiijadana loogu dhawaaqo Aadan Madoobe 55% inuu ku guuleystay halka Aadan Madoobena uu taagan yahay 80% hal ay ugu dhawaaqo xisaabta hadda waxay joogtaa Aadan Madoobe oo taagan 80% inaan ku guuleystay hal ay ugu dhawaaqo iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo taagan maya
boqolkiiba 55 inaad ku guulaysatay ayaan ku dhawaaqaynaa si macnihi macquul ah oo ma arkaysa dadkana aan uga gadi karno caalamkana aan uga gadi karno xisaabta meeshaasay tuuran tahay intaasaa la isku hayaa laakiin in ay ku shubtaan way isku raaceen ciidamadii iyaguna ma arkaysa magaalada way soo galeen banaankana way joogaan afayeenka dawladda Maryland ugaas xasan waraysi buu dhiibay wuxuu yiri annaga dawladka madaxweynaha dawladda Maryland waa Abdicasiis lafta gareen amnigana waa sugaynaa waanu joognaa xisaabtana meeshaasay maraysaa iyada oo Shariif Xasan Sheekh Aadan uu si cad u yiri annagu sida ay wax u socdaan ma ku qanacsanin ku shubasha socota balse laakiin anigu haddaan ahay macalinka lugaya Aadan Ingiriis warbaahinteena waa dhexdhexaad jaamacadda SMC Shariif Xasan iyo Aadan Madoobe labadaba waa ka soo horjeeda shakhsiyadeedii maadaama camiiliin ay yihiin balse laakiin warka sidoo yahay waa inaan u sheegaa Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ku guuleystay doorashadii beenta ahayd boqolkiiba 80 xisaab aan caadi ahayn Shariifka waa uu ka dhaxbaxay waa uu ka shaqaystay meeshaasi markii hore Shariif Xasan in uu ma arkaysa macnihi Aadan Madoobe caawiyaa loo geeyay meesha laakiin uu ka hoos guuray hadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo isagu waxa weeye far waay in uu ku biyo keeno uu ku dabagadiyo ayuu ka baqaya Xasan Sheekh Maxamuud taasaa keentay marka Aadan Madoobe in la rabo in qasab lagu soo saaro Aadan Madoobe hadii la soo saarana xabadda waa ay sii badan doontaa sida xaqiiqada ah day and night bay dhaba xabada ka sii dhici doonta dadkuna waxaan u sii sheegaynaa bal in ay isaga guuraan cidii ka bixi karta magaalada Baydhabo waayo Aadan Madoobe hadii qasab lagu soo saaro oo lagu shubto raxweyn oo dhan way dagaalami doontaa sida la og yahay dad fara badan oo hadda Xasan Sheekh Maxamuud la jiray oo furimo wata oo macni go'yaal wata oo cimaamada wata oo jabhadeynaya wad arki doontaan magaalada Muqdisho caasimadda dalkeena Soomaaliya haddaan u noqonana xisaabta waxay joogtaa shirkii waxa la go'aamiyay in xerada admis ee ku taala xalane lagu qabto sida aan live-ka idinkugu sheegnay shirkaasi waxa tagaya Xasan Sheekh Maxamuud oo hawiye matalaya Saalax oo isaguna matalaya Isaaq ama Dir dhanka kalena mucaaradka waxa tagi doona Saciid Cabdullaahi Dani iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hawiye daarood kala matalaya digilay mirifle meesha ma joogo Dir hawiye iyo daarood Xamse Cabdi Barre inuu meeshaasi tago waa laga reebay sidoo kalena Xasan Cali Qayre isaguna waa laga reebay meesha oo u kala dhashay murusade iyo ogaadeen Xamsana wuxuu ka baqayaa tii ku dhacday ninka la yiraahdo markayse macnihi waagi farmaajo in labadii Shariif markay isqabteen Kambala lagu gooyay in farmaajo la rido cabsidaasi ayuu ka qabaa mar hadii Dani meesha uu fariisanayo Xasan iyo Danina la iska horkeenayo marka saa awgeed shirkaasi macnihi waxa galaya daarood hawiye iyo Dir afar qofood ayaa fariisan doonta digil aw mirifle maba joogaanba wixii inta ku soo kordhaa waan arki doonaa dardaarankeena waxa weeye camalkana Ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraadii eebe uu arkaya sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan naftaan la isu dhiibay la isma siinay muuqaalka xiga ka hor hadii la kala qaato ballantanada waxa weeye firdawsa Mamuladi kare ugaramiya kare korontada iyo kabayasha kaburburimiya kambay ku kademiya makurbiyo ku kagoymiya
sisayo mamuladii kare 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 u garaac miyaa kare korontada iyo kaabayaasha ka burburi miyaa marka doroladii afgooye kumaandooskii dalkeenna kulliyaad wixii ciidan joogay maxaa korka looga keenay baraawiya kuya barow cudur iyo buura kaba maxaa loo kabakabaynaya loo kabakabaynaya baydhabo maylaan baydhabo baydhabo maylaan kariimow maxaa galay marka doroladii afgooye kumaandooskii dalkeenna kulliyaad wixii ciidan joogay maxaa korka looga keenay baraawiya kuya barow cudur iyo buura kaba maxaa loo kabakabaynaya loo kabakabaynaya baydhabo maylaan baydhabo baydhabo maylaan kariimow maxaa galay ukuyahay kakani mana kakan ukuyahay nuguli kolla nugul ukuyahay baladna adna maanta kooraha ku saaran ukuyahay kakane marna kakan ukuyahay nugul kolla nugul ukuyahay balanaana maanta adna maanta kooraha ku saaran ukuyahay kakani mana kakan ukuyahay nuguli kolla nugul ukuyahay baladna adna maanta kooraha ku saaran ukuyahay kakane marna kakan ukuyahay nugul kolla nugul ukuyahay balanaana maanta adna maanta kooraha ku saaran ukuyahay kakani mana kakan ukuyahay nuguli kolla nugul ukuyahay baladna adna maanta kooraha ku saaran ukuyahay kakane marna kakan ukuyahay nugul kolla nugul ukuyahay balanaana maanta adna maanta kooraha ku saaran ukuyahay kakani mana kakan ukuyahay nuguli kolla nugul ukuyahay baladna adna maanta kooraha ku saaran